kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey Soomaalida iyo caalamka aadana kala shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa kamid ah madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhambaal tacsiya u diray madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Siciid Cabdullaahi Dane oo tacsiya tiiraanyada u diray madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed dhanka kale wararkaan helayno halkuu ka dhacayo shirka xukuumadda kaasi oo taliyaasha ciidamada xilalka laga qaadi doono kuwa kalena la soo magacaabi doono qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto wararka iyo warbixinadan halka soo gelino aynu ku bilowno wararkeena allah u naxariiste waxaa geeriyooday hooyada dhashay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyada oo siyaasiyiin iyo madax kala duwan ay tacsiya u direen geerida madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed haddaba madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mid ah madaxda tacsida u dirtay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed allana hooyadii uga rajeeyay inuu jannatul firdaws ku arsaaqo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan tacsiya tiiraanyada u dirayaa madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hooyadii Xusna Cabdullaahi Isaaq ay ku geeriyootay dalka Imaaraadka waxaan marxuumad Xusno Cabdullaahi Isaaq alla uga baryayaa inuu hoygeeda ka yeelo jannatul firdaws samir iyo iimaan uu alla ka siiyo dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay ayuu yidhi madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhanka kale Xasan Sheekh Maxamuud iyo Siciid Cabdullaahi Dane ayaa tacsiya tiiraanyada u diray madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dane ayaa war ka soo saaray geerida ku timid allah u naxariistay marxuumad Xusna Cabdullaahi Isaaq oo ahayd hooyada madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha Soomaaliya ayaa marka hore tacsiya tiiraanyada u diray madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed qoyska iyo qaraabada ay ka geeriyootay marxuumadu inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan tacsiya tiiraanyada u dirayaa madaxweynihii toddobaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo dhammaan ehelada ay ka geeriyootay hooyo Xusna Cabdullaahi Isaaq ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale madaxweynaha ayaa alla uga rajeeyay marxuumadda inuu hoygeeda ka yeelo jannatul firdaws samir iyo iimaan uu ka siiyo qoyska iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ay ka baxday marxuumad Xusno Cabdullaahi Isaaq Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ahaa saaxiibo siyaasadeed si weyn isugu dhowaa iyadoo ay xusid mudan tahay in xilligii doorashada Shariif uu ka mid ahaa musharaxiintii codadka markii dambe ku biiriyey madaxweynaha talada haya Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo si weyn u mucaaradi jiray dowladii hore ee madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligii ay xukunka haysay weerara afka ahana ku qaadi jiray dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dane ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed isagoo uga tacsiyay geerida hooyadii allaha u naxariiste Xusna Cabdullaahi Isaaq madaxweyne Dane ayaa marxuumadda alle uga baryay inuu dembigeeda dhaafo oo uu jannadii geeyo ehelada iyo qaraabada samir iyo iimaan uu ka siiyo wuxuuna si gaar ah tacsiya iyo tiiraanyo ula wadaagay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed allaha u naxariistay haatanna waxaynu fiirinaynaa wararka naga soo gaaraya xafiiska ra'iisul wasaaraha ee dalka ayaa sheegaya in kulamo uga socdaan xukuumadda maanta xilka qaadis iyo xil magacaabis inay sameeyaan laga yaabo xogo hoosonele ayaa sheegaysa in xilka laga qaadi doono maanta taliyayaasha ciidamada militariga booliiska asluubta kuwa cusubna lasoo magacaabi doono wasiirada kulan kale ayaa waxay sidoo kale magacaabi doonaan sida la filayo guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir iyadoo sidoo kale isha lagu wada hayo shakhsiyaadka la magacaabi doono xogahan hele ayaa sheegaya in guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir loo saadaalinayo in loo magacaabi doono Yuusuf Xuseen Madaale
oo saaxiib dhow la ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud muddo horena xilkan soo qabtay. wax kasta way isbedeli karaan saacadaha u dambeeya, iyada oo la soo warinayo in siyaasiyiin badan ay xilalka taliyayaasha ciidamada iyo amniga iyo guddoomiyaha gobolka banaadir wada raadinaya muddooyinkii la soo dhaafay, iyadoo muddooyinkii u dambeeyey gobolka banaadir uu amnigiisu faraha ka sii baxayay. waxaa la isweydiinayaa dowladda xasan sheekh maxamuud ma keeni doontaa qof amniga magaalada muqdisho wax ka qaban kara.